dadka Afrikaanta ahi inta badan waxaa lagu xantaa in ay yihiin koox wax badan ka dambeeya dunida inteeda kale. haddaba muuqaalkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa sababta Afrika ay wax badan kaga dambeeyso dunida goor hore horumartay. Afrika waa qaaradda labaad ee ugu weyn dunida cabir ahaan, waxaana ku nool in ka badan 2 bilyan oo qof, waxaana dusheeda mara bado iyo webiyo ay caan ku tahay. balse arrinta isweydiinta mudan waxay tahay qaaradan iyo dadka ku noolba maxay dunida kale kaga dambeeyaan. dadka Afrikaanta ahi waxay soo mareen dagaalo iyo burbur aad u baahsan, waxaana arrintaas sabab u ahayd qaar ka mid ah dalalka Afrika ku yaala oo ay cadaawad fara badan ka dhaxaysay. isku dhaca iyo dagaalka Afrika dhexdeeda ka jiray waxay keentay in dunida inteeda kale ka faa'iideysato, waxayna qaar ka mid ah wadamada dunida bilaabeen in ay u kala eexdaan dalalka Afrika ee uu dagaalka ka dhaxeeyo, waxayna sidoo kale gumeysteen wadamo badan oo Afrikaan ah. dagaalka ka dhaxeeya dalalka Afrika ku yaala iyo qaabka loo gumeystay waxay maanta sababtay in ay wax badan ka dambeeyaan dunida inteeda kale, iyagoo garan waayay in dagaalka ka dhaxeeya iyo gumeystaha ku hoos jira ay keeni karto in ay gadaal ka maraan caalamka kale. sidoo kale Afrika waxaa ku yar dadka hal abuurka leh ee waxyaabaha cusub la yimaada, halka dunida inteeda kale ay ku badan yihiin dadka hal abuurka leh ee soo kordhiya fikradaha cusub. arrinta kale ee sababtay in Afrika wax badan ka dambeeyso dunida waxay tahay in dadka Afrikaanta aysan badanaa ka fakerin waxa mustaqbalka dhici doona, waxayna inta badan ku qancaan waxyaabaha markaas ay haystaan iyo xaaladda ay ku jiraan, halka dadka ku nool dunida inteeda kale ay yihiin kuwa ka fakara mustaqbalka waxa dhici lahaa iyo sida ay xaaladdu noqon lahayd, iyagoo inta badan aan ku qancin waxa markaas ay haystaan iyo xaaladda ay ku jiraan. Afrikaantu haddii ay helaan waxay cabaan, waxay cunaan iyo sidoo kale waxay jeebka ku ritaan, ma raadiyaan wax kale, waana sababta ugu weyn ee ilaa hadda ay u gaari la'yihiin dunida goor hore horumartay. balse waxaa muuqata saansaan iyo ifafaale ah in Afrika iyo dadkeedaba ay diyaar u yihiin in ay la tartamaan dunida inteeda kale. haddii aad ka heshay muuqaalkan, in aad share iyo like isugu darto waxba kaama dhiwayso. mahadsanid.